السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كحران شبكات آباء حسابتا مركلي waxaan kusoo dhaweynayaa cashirkeeni kooliska ahaa ee ku saabsanaa maadada xisaabta. cashirkan waa sida idin muuqato lesson 1 waa cashirkii koowaad taariikh maanta 28 bishana 2017 memoreesa marka waa cashirkeeni ugu horeeyay maadada xisaabta exam topic-keena maanta mawduucan wuxuu ku saabsan yahay addition waxaa loo yaqaanaa isku geyn ama isku dar. addition waxaa loo yaqaanaa isku dar ama isku geyn. example 1 waxa uu leeyahay 5432 waxaa rabnaa inaan ku darno 2354. first calaamadda sadii ma ku aragto addition ma loo yaqaanaa calaamaddaas meel haddii ku aragto ku dar u qaado. واتنا علامة كمقطع واتنا انت كمقطع واتنا انت كمقطع واتنا انت كمقطع marka waxa rabnaa inaan isku darno seeba isku daraysa first waxa ka bilaabeysaa in aan ka soo bilaabeysa naas aqso waxaadaysa labo afar ku dar yani adoo labo dooreysta afar door lagu siiyo waxaan qanaysaa 6 saddex shan ku dar 8 afar saddex ku dar تضوء شن لو قدر تضوء example 2 على شن كل لعبة قل صدني أفر وحرم عنه قدر لو كون سدح بقول أفرتني شن سيبا اسكو دريسا على سا أفر لو قدر شن سلام سدح أفر قدر تضوء لح سدح قدر سلام شن لو قدر تضوء لا example أورس ولا example أوف example 3 waxaan rabnaa 54,364 inaan ku darno 86,928 sidee baa isku dareynaa waxaan leeyahay afar 8 ku dar 82 afar 8 ku dar 82 sharci xisaabta ma ogola marka hal mar in la qoro numberka weyn 9 ku darka markii isku dareyso maxaa sameynaysaa waxaan qoranaysaa numberka dhinacaan jiro labadaas aan qoranaysaa waxaa maskaxda ku qaadanaysaa numberkaas dhinacaas jir ee halka maxaa sameynayna labadii qornayna halkaasna kora ka isla maskaxda ku dhigta halkaas aweyd waxa ku daraysaa marka lixdaas ku daraysaa lix hal ku dar todoba ku dar marka 84 waa marka 9 way ka badanta maxaa sameynaysaa kan dhinacaas jir qornaysaa kan kale toodna waa qaadanaysaa هذا وقت هالك وقت وعك دريسة سدح القدر أفر سجال القدر القناة 8 سدح مع قرنة سدح قرنة هالكنا خالص محاولة هالك وعك قدر أفر القدر شن القدر 8 مع قرنة هال ما خالص هالك وقت وعك قدر شن هالقدر لح زد قدر 8 marka u dambeeyo wax ma la qaato sababtoo ah dhinaca number kale ka jiro iska qor marka numberka u dambeeyo example 4 am ashirki ugu dambeeyo example ugu dambeeyo waxa leenahay 8 9 ku dar aan qanaysaa 10 iyo 7 sharci ma ogol marka 7 in hal mar la qoro sababtoo ah 9 way ku weyntaa maxaa sameynaysaa 7daas ay qornaysaa halkaasna waad qaadanaysaa 7 iyo 4 محاولة هلكا وتع قدرتها لح القدر تضو قدر هلكا وت لح عن قدر تضو قدر 8 أفر مركع خورنا سافر تسافرنا سالكاسنا وقادنا محاولة هلكا وتع قدر سدح القدر أفر لح قدر 8 ويد مع خورنا سامرك نمبر نعس جرا خورنا سوا إبر كاسنا واتقادنا سوا محاولة هالكا ولد waxaa ku daraysaa afar ku dar shan 8 ku dar aan qanaysaa
13 maxaa qoranaysaa marka saddexdaasa qoranaysaa halkaasna waa qaadanaysaa maxaa wadataa halka inta ku dar 6 4 ku dar gives you 10 marka u dambeysa marka waa kuu sheegay waa la wada furtaa loo marqaato waxaan rajeynayaa cashirkan inaa fahanday haddii aad fahantay exercisekana ii sheegaya inaad fahantay waa isku daraysaa marka tan koowaad waa kanaa waa isku soo daraysaa wix kuu soo baxo jawaabteed waa tanaa haddii jawaabtan kuu soo baxdo sax bay ku tahay kan labaad waa kanaa waad kasoo shaqeynaysaa markaa kasoo shaqeysa jawaabta haday kuu soo baxdo way kuu saxan tahay kan saddexaad waa kanaa waad kasoo shaqeynaysaa haday jawaabtan kuu soo baxdo sax bay ku tahay tan afraad waa kanaa kasoo shaqeynaysaa haday jawaabtan kuu soo baxdo marka markasta waxay tahay maada xisaabta inay ku aadan tahay biiska mar waliba casharada bilowga ayaa ugu muhiimsan maada xisaabta casharada haddii aad mar la socoto ku casharada kale kuma dhiibi doonaa insha Allah marka waxaan ku rajeynayaa nasiib wanaagsan casharada kale la socon doonto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh